News Now. Dawadayaal ku soo dhawaada warka EBC ee saaka aan idin hayno. Taariikhdu waa 20 bisha January waa 2016 waa maalin Salaasa. Warka qodobka aan ku hayno saaka waxa uu ku saabsan yahay dil ka dhacay gobolka Salal. Laba nin oo markaasi lagu dilay gobolka Salal ayaa waxa la sheegay in ay ahaayeen laba darawal oo maxaabiis ahaan loo qabsaday dagaaladii ka dhacay gobolka Salal maalmihii dhaweyd. Haddaba waxa dhacday in maxaabiistaasi la dilay 18 bisha oo ahayd maalintii ay ciidamada jabhadda Anfarta ee Furud loo yaqaano ay weerareen dalka Djibouti. Saldhig ciidanku Djibouti ay leeyihiin ee ku yaala xadka u dhaxeeya Ethiopia iyo Djibouti. Halkaasi waa ay qasaaro ba'an gaarsiiyeen ciidamada Djibouti. Falkan ayaa waxa uu dhacay maalintaas ayuu dhacay marka la laayay labada maxbuus ayaa ahaa iyagu dad markaasi laga qabsaday wadada oo markaasi iyagu gaadiid watay oo aan war ka hayn dagaalkii dhex maray beesha Ciise iyo beesha Samaran wiigii soo dhaafay. Haddaba falkan waxaa ka sheekeeyay oo ka hadlaya afhayeenka booliiska Somaliland. Waxa uu sheegay in markaasi ay cid ay gacanta ku soo dhigeen. Haddaba hadaladiisii waxaa ka mid ahaa afhayeenku isagoo faahfaahinaya arrintaasi sida 20kii bisha koowaad 2026 waxaanu halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ku saabsan arrin ka dhacday gobolka Salal degmada Saylac deegaanka Indhabiraale taariikhdu markay ahayd 18kii bishii koowaad 2026 halkaas oo lagu dilay labada marxuum ee kala ah marxuum Yuusuf Cabdillaahi Xuseen iyo Mustafa Jaamac Faarax kuwaas oo gacan ka xaqireen ku dishay deegaankaasi Indhabiraale. ciidanka bileysku markii hawshaasi ay dhacday si degdeg ah ayay uga hawlgaleen waxaanay gacanta ku soo dhigeen eedeysanayaal la sheegay in ay falkaasi ka mid ahaayeen halka kuwa kalena ciidanka bileysku ay ku daba jiraan isla markaasna aan sinaba lagu cafin doonin meel kasta oo ay galaan ay ciidanka bileysku kaga daba geli doonaan. sidaa daraadeed maadaama kiiskaas ay gacanta ku hayaan ciidanka bileysku oo ay socdaan hawlgalladii lagu baadi goobayay laguna soo dhameystirayay kiiskaas in ay dadweynaha deegaankaasi isdejiyaan isla markaana ay la shaqeeyaan ciidanka bileyska kana warsugaan natiijada kiiskaasi. arrinta goobtaasi ka dhacday waa arrin xun oo aan dadkeennu caado iyo dhaqan midna u lahayn waxaananu uga digaynaa cid kasta oo arrintaasi oo kale ku kacda in ay la kulmi doonto cawaaqib xumo. haddaba ciidanka bileysku maadaama uu ku jiro hawlgallo ballaaran oo dalka oo dhan ah oo lagu baadi goobayo midhadhkii ka hadhay dadkii lagu eedeynayay in ay dilkaasi ka qayb qaateen in ciidanka bileyska lala shaqeeyo cid kasta oo arrintaasi looga shakiyana la soo gaadhsiiyo ciidanka bileyska si loo horgeeyo hay-adaha sharciga. taliska ciidanka bileysku waxa uu murugada iyo dhibaatadaasi la qaybsanaya eheladii ay ka baxeen labadaasi marxuum waxaanay tacsi u dirayaan ehelkoodii iyo qaraabadoodii meel kasta oo ay joogaan. waa tahay dawadayaal sanad arkaysa baad afhayeenku waxa uu sheegay in markaasi dilkaasi dadkii geystay ay qaarkood ay gacanta ku soo dhigeen balse aanay xaqiiqnaba ahayn in ay dadkii dilkan geystay qudhoodii ay gacanta ku dhigeen balse waxa uu sheegay afhayeenku in ay gacanta ku hayaan dad looga shakisan yahay in markaasi ay qayb ka ahaayeen dilka labada maxbuus. arrintan ayaa ah arrin aad u fool xun marka la eego xuquuqda maxaabiista iyo xuquuqda aadanaha marka laga hadlayo xuquuq uu leeyahay qofka maxbuuska ee gacanta markaasi lagu hayo. qofka maxbuuska waxa uu xaq u leeyahay in aad ilaalisaa daryeelkiisa caafimaadkiisa cuntadiisa iyo amnigiisaba laakiin xaq kuguma laha xaq adigu uguma lihid markaasi in aad disho oo si arxan daran aad u disho. waa waxyaalaha markaasi kusoo kordhaya falalka aadka arxanka daran ee maxaabiista loo geysto. dambiyada maxaabiista laga galo ayay ka mid tahay in markaasi la daryeeli waayo oo la jir dilo ama la dilaba. arrintan waxay dib u kicin doontaa markaasi dagaalkii dhex maray labada beelood ee beesha Ciise iyo beesha Samaran
taasoo markaasi dib usoo kicinaysa in dagaal dambe uu dib u dhaco arrintan waa arrin aad runtii looga xumaado in maxaabiista la laayo wax ma aha markaasi ku cusub geyiga soomaalida oo dhan ee waa wax hore u jiray maxaabiista in markaasi dadku markay caroodaan oo caadifadda ay isqaban kari waayaan ayay markaasi dilaan cidda ay markaasi gacanta ku hayaan ee maganta u ah haddaba wixii war faahfaahina ka soo baxa arrintan dib ayaanu idinkala soo socdiin doonaa warkeena intaa ayuu ku kooban yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mustafa cabdullaahi waadila isma dhaafno fadlan hanaga ilaawina like-ta iyo share-ta iyo comment-ka intaba idinka ayaa shaqada iskale waad mahadsantihiin